الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. walaalayaal waa darsigeennii 23aad oo ka mid ah duruustii taxanaha ahayd matnu abi shujaac calayhi raxmatullah. darsigan ka horeeyey waxa aynu ka soo hadalnay oo aynu kusoo dhex jirnay xuduudii ilaahay subxaanahu watacaala uu jideeyey, xadkii qofka waxa maandooriyaha cabba ayaynu ka soo hadalnay iyo shareecadu waxa ay ka tidhi. darsigeena biidn illaahi jala wacalaa maanta wuxuu inooga bilaabanayaa faslun fii xaddi sariqa. wuxuu baab u yahay kanina xadka ama xeer ciqaabeedka xatooyada ama tuuganimada shareecadu ay markaa u jaangoysay. in wax la xado ama qofku uu hanti xado waa wax macsiyo iyo dembi ah, waayo shareecadu waxyaabaha ay ilaalisay ee kulliyaadka la yidhaahdo ama maqaasidu shariica la yidhaahdo waxaa ka mid ah in qofka maalkiisa loo ilaaliyey. nabiguna sala allahu calayhi wasalam dardaarankii ugu dambeeyey ee xajatul wadaac uu dadka muslimiinta ah kula hadlay, waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahayd ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fi baladikum hada fi shahrikum hada, aw kama qaala calayhi salaatu wassalaam. nabigu sal slam wuxuu yidhi dhiiggiina iyo maalkiina iyo sharafkiinuba xaaraan bay idinka yihiin, oo qofna qof kale dhiiggiisa kuma xadgudbi karo, sharafkiisa iyo cirdigiisana kuma xadgudbi karo, maalkiisana kuma xadgudbi karo, sida maalintaa ay taagnaayeen oo maalintii carafa ahayd ay xurmo u lahayd, bishaa lagu jiray oo markaa bishii dilxijo ahaydna ay sharaf u lahayd, goobta la taagnaa oo goobtii carafa ahaydna waxa weeye ay sharaf u lahayd. siday maalmahaasiba xurmo u leeyihiin ayaa bini aadamka dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo markaa sharafkiisaba uu xurmo u leeyahay. sariqadu markaa qofku waa inaad xurmadaa jiidhid oo hanti aan xalaal ku ahayn aada markaa xadid oo qaadatid weeye. lidalik baa shareecadu waxay ka dhigtay oo markaa ka jidaysay faldembiyeedka xeer ciqaabeed u qalma, ilaahay subxaanahu watacaalana uu garanayo waxa bini aadamkan celin kara. haddii xeer ciqaabeedka shareecadu ay u dejisay faldembiyeed kasta lagu dhaqmi lahaa, waxa weeye raadic buu noqon lahaa, wax dadka ka celiyuu noqon lahaa. iminka qofkii waxada waxaa laga yaabaa jeel baa la geynayaa, jeelkii waxbuu cunayaa, waxbuu cabayaa, meeluu seexdana wuu helayaa. qofkii banaanka wareegayey oo ka fikirayay maanta xageebaad waxaad cuntid ka heshaa, marka la yidhaahdo jeelkanaad iska dhex joogaysaa, waxa weeye uma aha wax ka celinaya dembigii, uma aha. dib markuu kasoo baxaba uu hawshii xaggaa ka wadaya. laakiin shareecadu tan ay jidaysay qofka lagu fuliyo, qof dambe oo hunguraynaya ma jiro hanti bini aadam leeyahay. wa tuqtacu waxaa la jarayaa yadu saariqi, gacanta qofka waxaday baa la jarayaa bihalaathati sharaa'ita, laakiin waa 3 shardi marka la helo. jaritaanku markasta maahee 3 shardi marka la helo ayaa gacanta in la jaro uu qofku mudanaya. ka koobaad waxa weeye an yakuuna baaligan, qofka waxaday inuu qof qaangaadha yahay. ilmo yari haddii uu waxado dee gacan lama jarayo oo waxa weeye waa gacanta lama jarayo. laakiin ilmaha yari muxuu yeelanayaa? wixii uu xaday magdhow bay yeelanayaan oo qofkii uu ka xaday in loo celiyo xaqiisii weeye. xaqiisii kuma lumayo, ilmo yar baa kaa xaday, kuma lumayo weeye. 2 caaqilan, qofku inuu qof wax kala garanaya yahay oo aan waalnayn. qofkii waalaana gacan lama jarayo, laakiin wixii uu xaday waa la magdhabayaa, waa la celinayaa weeye. 3 wa an yasriqa, waa inuu xadaa nisaaban wax nisaab gaadha oo qiimatuhu rubcu diinaar.
diinaarka marka la qaybiyo 4 meelood laga dhigo meel kamida waa inuu xadaa meesha uu ka xadayaana min xirzi mithlihi meesha shaygaas oo kale lagu ilaaliyo waxa weeye inuu ka xado weeye rubcu diinaarka waxa lagu qiimeeyay in uu yahay 1 gram oo dahab ah qiimihiisa 1 gram oo dahab ah qiimihiisa weeye hadaynu nidhaano $50 ama hadaynu nidhaano $90 waxa weeye waa qiimaha un wixii inta ka yar gacan laguma jarayo wixii 1 gram oo dahab qiimihiisa ka yar waxa weeye gacan laguma jarayo xigmada ku jirta xigmad weyn weeye gacanta hadiiba qof laga jaro waxaynu nidhi magteedu ama waxa weeye diyadeedu waxay noqonaysaa 50 halaad maantana waxa loo jarayaa 1 gram oo dahab ah sababtoo ah qofkani xurmadii ilaahay buu ilaalin waayay xuquuqdii rabbi buu ka xadgudbay qofkani markaa wuxuu mudan yahay xeer ciqaabeedka noocan oo markaa qiimihii shaygani uu lahaa hoos u ridaya markaa in lagu fuliyo marka qofkaasi waxa la eegayaa horta inuu yahay qof weyn oo markaa qaangaadha labo inuu caqli leeyahay qof waalan aanu ahayn waxa uu xadayna ay 1 gram oo dahaba gaadhaan waliba uu ka xaday goobta dahabkan oo kale lagu ilaaliyo khasnadii lagu ridi jiray ama meeshii lagu ridi jiray haddii dahabka banaanka la dhigo ama intuu ka dhaco halka uu ka helo oo uu qaato gacan looma jarayo haddii dahabkii aad banaan iska dhigtay ama tusaale ahaan gaadhigaagii geerashkii lagu xirayn jiray meel aan ahayn baad dhigto banaankaas aad dhigtay waxa weeye sidaas uu ku xaday gacan looma jarayo lacagtii khasnadeedii iyo booskii lagu ilaalin jiray kumaad ridin ee iyadoo furan baabad ka tagtay dabadeedna wuu iskala baxay waxa weeye halkaas uu qaatay gacan looma jarayo sababtoo adaa ilaalin waayey shayga markaad ilaalisay oo dabadeedna qofkaasi ilaalintaadii uu ka soo xadgudbay oo xaday qiimahana uu gaadho markaasuu gacan jaridda qofkaasi mudanaya weeye waxyaabaha aan gacan jaridda lagu mudanayo waxaa ka mid ah beer baaba kuu baxaysa beertaadii ayaa qof intuu soo galay ayuu cunay uu ka dhergay qofkaasi in gacanta la jaro ma mudanayo hudheelkaagii intuu soo galay buu wax iska cunay oo ka dhergay laakiin maxaa la jarayaa ama gacanta lagu jarayaa haddii beerta midhaheedii intaad soo gurtay meelihii lagu ilaalin jiray iyo kartoonadii iyo waxa weeye goobihii lagu ilaalin jiray aad ku ridatay uu goobta ugu soo dhaco gacan jaridda uu mudanaya qofkaas intuu geedka saarnaa baylaha buu ahaa cuntadii banaanka iska taalay baylaha ay ahayd laakiin markaad ilaalisay oo goobteedii aad dhigtay waxa weeye qofka u soo gudba waxa weeye markaas uu gacan jaridda mudanaya weey waayahay wuxuu yidhi markaa wa an yasriqa wa inuu ka xadaa nisaaban nisaab qiimatuhu qiimihiisu yahay rubcu diinaarin diinaar 4 meelood marka loo qaybiyo meeshii oo min xirzi mithlihi meesha diinaarkan oo kale lagu ilaaliyo ama shaygan oo kale lagu ilaaliyo uu ka xado waliba laa mulka fiihi waa inaanu wax mulkiyad ah ku lahayn mulkiyadda walaa shubhata fi maali lmasruuqi minhu shubha ama يعني qofkan lahaansho u ekaanshana inaanu ku lahayn maxaa loola jeedaa qofka tusaale ahaan 2 qof baa hanti isku darsaday shirkadan iyaga wadaaga mid kamida labadii qof baa wax ka xaday gacanta lama jarayade waayo hantidan uu qayb ku leeyahay waxa loo xisaabinayaa wixiisii inuu wax ka qaatay baa loo xisaabinayaa shubhada maxaa la yiraahdaa qofkan inuu waxan wax ku leeyahay inuu u eg yahay oo kale waxa kamid ah ilmuhu aabihii hadduu wax ka xado hantida aabihii hadduu dhinto dhaxal buu ku lahaan lahaa marka hantidii inuu wax ku leeyahay shubhadeedii baa meesha taala waxa weeye wuxuu u eg yahay hanti wax ku leeyahay marka isagana looma jarayo weeye horeynu usoo tilmaanay waalidku hantida ilmihiisa haddii uu qaato wax xeer ciqaabeeda uu mudanaya ma jirto dee dhiiggiisa hadduu daadiyo aanu xeer ciqaabeed mudanayn dhiiggiisa hadduu daadiyo ayaanba loo dilayn nabiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi anta wamaaluka liabiika ninkii weydiiyey saxaabigii weydiiyey hanti uu aabihii ka qaatay buu yidhi adiga iyo maalkaagaba aabbahaabaa idin leh
يعني أبها مالك مرتك ما هوي مرتك ما وتقطع وحال جريا يده اليمنى قفكي هدي مركا شروط لغا هيلو حتى يدينا uu ku kaco waxa la jarayaa gacantiisa midig baa la jarayaa min mifsalil kuuci cumaacumtaana laga jarayaa waa inta yar ee hore ee gacanta dhaqaaqda intaas la jarayaa way fa in saraqa thaniyan mar labaad buu xaday markii hore xeer ciqaabeedkii markii lagu fuliyay ayuu mar labaad ku noqday oo xaday قطعت وحال جريا رجله اليسرى لكتا بذح أيا إيانا انتا قفكو كو استاغو هوسه انتا سال جريا وي فإن سرق ثالثا مرصد حاد بقفكي حظي قطعت وحال جريا يده اليسرى قعنتي سي بذح بالا جريا فإن سرق رابعا مر أفراد هديو وحظو قطعت وحال جريا رجله اليمنى لكتي مدي لبدي قعمد يا لبدي لقود ولا جري أفر جرنا وحبوا حذاي فإن سرق بعد ذلك مرشانات بابو كسي داري با يدو انت بلا جري أيو مرشانات كسي داري عزر مركا لإدبنية أو حوية شهذا البلا دعية قفكا ولجناحية وقيل علماء غيبت ودنوحي إلى أهدين يقتل صبرا وبلد ليا قفكني وقف ألم ترى صور دافي وحوي وحلين كرابة أنو تشيرين أو بهلا مرة دي أفرتي أدين بلغات شرعي ولينا أو حتى يدي أتاغن يهي وما دابا ولا دافين يا شركي سوال لدي ليا بي علماء غيبتونا أي راهدين وايه فصل كان نوحو باب يهي في قاطع الطريق قفكي موريان كأهاي تشدقو يدا ديغاني ضيضيقي قفكي مركا إسباردو ميلها أتالي أيو مركا كاننا باب يهي قاطع الطريق وقف كدتك مسلمين تسفريا هديديا أو مركا وحوي نفتودي إيا مالكودي إيا إنو إيا بقدين قليبا وتاقن وي قاطع الطريق بالليلة هذا قفكا علماء قيبتود وحيكون المامان باب كان أو مقعو بحين حد الحرابة قفكني وحو دولان إيا ويرر كويهي ذاتك مسلمين تابو دولان كويهي إلهنا سبحانه وتعالى قرآنك أيو كتل مامي حير عقابتك وحا ونقون أيو وقطاع الطرق ذاتك تدقو يدا لكتا على 4 أقسام أفر قيبوت بيو قيب سمان قيبتك وبعد وحوي إن قتلوا هدي أي دتكي دلان تدقو يو لكتي دتكي مسافر كهاي سعوني أيو قيب دلي ولم يأخذوا المال لكن مال ما يقاذن هنتي دي دتك ما يباردن ويدلين دل بيدونين قتلوا كوا والو دليا قصاص بالو دليا دد بيلايين iyagana waa la laynayaa way fa in qatalu hadii ay waxdilaan wa akhadhu almaala hantidiina ay dadkii ka furtaan oo dhacaan maxay isku dareen dhac iyo dil bay isku dareen qutilu waa la dilayaa waliba wasulibu waa la salbinayaa inta meel lagu xidho ayaa afarta adima masaamiir lagaga taagayaa meel baa laga soo lulayaa salbi baa lagu sameeynaya maxaa ciqaabta loogu sameeynaya faldambiyeedka ay sameeyeen baa waxa u dhigma arintaas u dhiganta waayo hantidiina way qaateen dadkiina way laayeen xaq uma laha inta la dilo in markiiba la aaso xaq uma laha waa in la salbiyaa oo marka halka laga soo lulaaweey wa in akhadhu almaala hadii ay maalka qaataan walam yaqtulu laakiin aanay waxba dilin way bajiyeen dadkii hantidii ay siteen oo dhan bay ka furteen tuqattacu aydihim wa arjuluhum waxa la jarayaa lugahooda iyo gacmahooda waxa loo jarayaa min khilaafin isdaaf gacan midig iyo lug bidix ayaa mid kasta laga jarayaa way hadii hore looga soo jaray oo mar labaad ay ku noqdeen labadii u haray baa la isdhaafinaya oo laga jarayaa way taasina waxa weeye xeer ciqaabeed u dhigmo weeye afarta qaybood ayay u qaybsamaan afarta qaybood ayay u qaybsamaan إلهي سبحانه وتعالى أن القرآن كتل مامي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وحكرر يا شيخ نفي إن لا سمينيو بناك أوبحين dadkii bay baqdin geliyeen waxa weeye waxna ma yidin hantina ma qaadin kuwa waa laga musaafirinaya dhulka waxa weeye waa la fogeynaya weey waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa dhacday xadiidka Anas ibn Malik uu warinayo niman soo islaamay ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam Madiina ugu yimi dabadeedna intii ay magaalada joogeen bay dal khabiyoodeen oo waxa weeye xanuun waxa ku dhacay calooshu ay weynaanayso nabigu sallallahu alayhi wasallam nimankii uu dabiibay wuxuu ku dabiibay halo ama geel nabigu sallallahu alayhi wasallam uu markaa hayay oo geelii sadaqada kamid ahaa ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri u taga geela caanihiisa iyo kaadidiisa isku dara waxa weeye iyada caba intii bay geelii caanihiina ka cabayeen ka dhameeyeen waxa weeye kaadida lagu daray way ku caafimaadeen markay caafimaadeen ayaa damac galay waxay sideen oo geelanba ma dhacdaan xaba waad ku caafimaadeen waxa way geelan uu barakeysan yahay inankii qowsaarka ahaa ee la joogay geela ama geeljirihii ayay dileen dabadeedna waxay qaateen geelina way dhaceen nabiga sallallahu alayhi wasallam ciidan buu ka daba diray waa la soo qabtay markii la keenay nimankii nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu faray in la salbiyo waxa weeye afarta adinba masaamir saa looga taago meel banaan oo qorax ahna saa loo jiifiyo ilaa naftu ka baxdo halkii baa lagu cadaabay nimankii oo ay ku dhinteen sababtoo ah faldamiyeedkii sameeyeen baa sidaan ah xiraabay sameeyeen xatooyay sameeyeen dhacbay sameeyeen marka dhucu wax sahlan ma aha waxaa mudan inaynu tilmaano qofkan xiraabada loo dilayo waxaa shardi ah inuu mukallaf yahay inuu qof muslim yahay caaqil wax kala garanaya yahay qaangaadhna yahay sidoo kale waxaa shardi ah ahlul iltizaam inuu yahay qof yani shareecada islaamka ama shareecada waxa weeye awaamirteeda u hoggaansamaya waa inuu yahay waxa weeye gaalo kale haday soo duusho waa meeshooda laakiin qof muslima waa inuu yahay waxaa shardi saddexaad ay culimadu ku daraan waa in qof awood u saaxiiba uu yahay haddii qof aan hubba haysan oo banaan iska wareegaya dadka intuu yidhaha waxsiiya oo dadku waxooda iska siiyaan waxna aanu ku samayn karin oo ay arkaan lama odhanayo dadkaas waa la dhacay lama odhanayo laakiin waa inuu qof hubaysan oo wax dili kara wax geysan kara dadku nafahooda ay uga baqayaan waa inuu yahay marka intaa marka laga helo ayaa shuruudan lagu qaadayaa weeye فإن خافوا السبيل هدي أي قفكي ودد مريي مسافر كأها أي بغدين قليان ولم يأخذوا مال آني قاذا ولم يقتلوا أو آني دلين حبسوا ددكا والله حريا وعزروا وانا لكرباشيا أو والله قراعيا ومن تاب منهم قفكي توبت كينا قبل القدرة عليه انت الله صوقبا سقطت عنه الحدود حدودي ويكدعدي hadiiba ay waxan geystaan faldambiyeedkii way ku dhaceen waxa la sheegay in marka ciidamadii muslimiintu ay baadi goob ugu jiraan oo dawladdu doonayso ayaa loo sheegay waaba isa soo dhiibeen haddii isa soo dhiibaan haddaanay wax dilin hadday wax dilaan dee waa loo qisaasaya ciddii ay dileen hadday hanti dhaceenna hantidii ayaa laga magdhawayaa waa laga rabaa laakiin maxaa ka dhacaya ciqaabtii iyo xeerkii uu lahaa wadagalkan iyo markaa mooryaanimadan ay sameeyeen xeerkeedu ka dhacaya haddii isa soo dhiibaan waxa weeye dambi laguma qaadayo wa ukhidha bil huquuq saqatat anhu al hudud hududi baa ka dhacaysa wa ukhidha bil huquuqi huquuqdi laakiin waa laga qaadaya weeye faslun kanina baab wuxuu yahay fi ahkaam as-siyali ahkaamti صائلك waxa la yiraahdaa waxa weeye qofka kugu soo weerara naftaada ama maalkaaga ama sharafkaaga qofka waxa weeye weerarka kugu soo ah in la iska celiyo
أي حكم كيسيهي إيا وما تتلفه البهائم إيا وحي حواليه آد لهيد أي بابيان قيلا جيبا وحوي انتو كل بابعي المير دلي يا الله قبسانا يا قاريقاقي أي قفتي ري حكمك إيو عدي كسو ويرارتا تسكعليسيد حكم كيدي وي dadka intaynan gelin darsigan ama baabkan aynan gelin saa'ilka ama dadka qofka ku soo weerara haddii aanu muslim ahayn qof muslima haddii aanu ahayn ama oo uu gaal yahay ama xayawaanaad iyo bahalo marka ay yihiin iska celintooda waa waajib qof muslim haddaanu ahayn gaal baa ku soo weeraray inaad iska dhicisaa waa waajib xayawaan iyo bahal baa ku soo weeraray iska celintiisu waa waajib haddaad awoodaysid hadduu qof muslima yahay qofkaasina naftaada uu markaa ku socdo haddii aad ka carari kartid taasaa wanaagsan haddii aad ka carari kartid qofka muslimka ah oo aad ka fogaan kartid taasaa wanaagsan haddii aad isdifaacdidna waxa weeye waa xaq baad u leedahay haddaad isdifaacdid laakiin haddaad ka carari kartid baa wanaagsan oo dee haddii aad ishortimaadaan ama adaa dilaya ama isaga ayaa ku dilaya marka intaad ka carari kartid dhiigaa way fiican tahay haddii laakiin uu ku soo weeraro oo aad isdifaacdid waxaad xaq u leedahay weeye hadduu hantidaada qofkaasi soo weeraro adigaa lagu kala dooran karaa inaad la dagaalantid oo waxa weeye aad ku dishid iyo hantidaa inaad uga tagtid labadaba inaad uga tagtid baana khayr badan inaad uga tagtid baana khayr badan marka waxa weeye inta dhiig laga carari karo qof muslima dhiiggii in la daadiyo inta laga carari karo in laga cararaa fiican laakiin xaq baad u leedahay oo shareecadu kumay odhan gacmaha laabo oo waxba ha samayn kumay odhane haddii hantidaada iyo markaa naftaada qofkan uu ku socdo xaq baad u leedahay iska celintiisa waman qusida qofka lagu soo weeraro ama loola soo qasdiyo oo lala soo doonto biadaa waxyeelo fii nafsihi naftiisa markaa waxyeelo loo geysanayo aw maalihi ama maalkiisa aw xariimihi ama dumarka uu markaa isagu mas-uulka ka yahay faqaatala can dalika dabadeedna ka dirira oo ku dagaalama wa qatala waxna dila falaa damaana calayhi qofka waxba laguma laha dumarka iyaga laguma dooransiinayo dumarkaaga inaad difaacdid iyo inaad ka tagtide haddii dumarkaaga ay yihiin wax lasoo weeraray waa sharafkaagii iyo cirdigaagii inaad dagaalantid baa waajib ah inaad difaacdid ayaa waajib ah weeye haddii markaa dagaalkaas waxa weeye qofku uu isagu ku dhinto waa shahiid man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid nabigu sal slam wuu tilmaamay shahiid weeye qofkaasi hadduu isagu wax dilana wax loo qabsanayo haba yaraatee laba cali isweydiin mayso qofkaa dhiiggiisu hadur ayuu noqonayaa wey hadur buu noqonayaa وعلى راكب الدابة قفك دابة سارا ضمان ما أتلفته وحا لغا ربا إنو مقدو وحا أي بابيسو دابديسو يعني قاربات ودا قارقا قوحو تشيرو قفكا قارقا ودا لغا ربا darawalkii gaadhiga ayaa laga rabaa neef baad hogaaminaysaa neefkaasi wixii uu jiiro ama uu markaa dilo waxa weeye ama waxyeeleeyo adigaa laga rabaa weeye aan galo markaa fi qitaal albugaad marka waxaan tilmaamaynaa bugaadda waxa shareecadu ay u taqaanaa qof dowlad muslima oo jirta isagu kula dagaalamaya xilka idinkuma mudnidin ee annagaa mudan annagaa rabna inaanu dowladda ka talino sidaa kula dagaalamaya baqyi baa la yidhahdaa ama xadgudub baa la yidhaahdaa buqaad baa qoladaa lagu tilmaamaa masalada buqaadda iyo khawaarijta oo baryahan aada moodid inay yihiin seef laba af leh oo ilaa siyaasiyiintu ay u isticmaalayaan ciddii xitaa kasoo horjeeda laga yaabo in lagu karbaasho awalan
erayadan khawaarij iyo buqaad iyo waa erayo shareecadu ay tilmaantay goobtii ay ku tilmaantay iyo tilmaantii ay ka bixisay wax aan ahayna in loo geliyo sax ma aha Sheikhul Islam markii uu kala saarayay farqiga u dhaxeeya buqaadu waa dadka waxa weeye weerar cid ku soo ah iyo khawaarijta waxa weeye uu kala tilmaamay waa baabkan aynu tilmaami doono haddii alla idmo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin labadaasi laba qaybood ama laba waji ayaa lagu kala tilmaami karaa wajiga koobaad khawaarijtu waxa ay muslimiinta horta way la dagaalamaan oo waxa weeye muslimiinta ay ku foogan yihiin weeye Ali ibn Abi Talibna wuu la dagaalamay waanu ku bilaabayba dagaalka qoladii laga soo qabtay iyo kuwii laga laayayna wuu ku farxay laakiin buqaada waxa weeye dagaalka iyaguma bilaabaan ama laguma bilaabo ilaa axkaam cayiman la tilmaamo mooye buqaadu muslimiinta ayay ka mid yihiin khawaarijta laakiin culimadu ma muslim baa mise ma aha buqaada iyo khawaarijtu maxaan tusaale uga bixin karnaa buqaada waxaan uga bixin karnaa waqtigii Uthman ibn Affan la dilay saxaabada qayb ka mid ah oo Muawiya bin Abi Sufyan iyo raggii la midka ah ay hogaaminayeen ayaa ku kacay Ali ibn Abi Talib oo Uthman ka dambeeyay dabadeedna waxay yiraahdeen Aliyow raggii Uthman dilay soo qabo Alina wuxuu yiri war waa rag ciidanka ka tirsan waxay ahaayeen koox dhan oo ciidanka ka tirsan oo waxa weeye waxaan isku qafilay Uthman in uu xaq darro ku joogo oo sidaa ku dilay haddii aan iminka ku jeesto waxa weeye dhiig badan baa daadanaya horta bal maamulku ha ii caga dhigto awood aan yeesho markaasaan nimanka cadaaladda hor keenaya iyana waxay yidhahdeen ilaa aad cadaaladda hor keentid annagu bayco kulama gelayno oo waxa weeye kula heshiin mayno labada dhinac saxaabaa ka soo jeeday dhinacan Muawiya bin Abi Sufyan oo saxaabadii rasuulka ka mid ah baa ka soo jeeda dhinacan kalena Ali bin Abi Talib oo saxaabadii rasuulka ka mid ah baa ka soo horjeeda dhinac Aisha ku jirtay dhinacna waxa weeye saxaabadii waaweynaa ee kala ku jiray buqaad baa la yiraahdaa marka maxaa la isku qabtay ama uu saldhig u yahay waxa weeye ama dulmi bay tirsanayaan ama waxay leeyihiin qofkan xilka haya ayaan mudnayn khawaarijtu way ka duwan yihiin oo dadka muslimiinta ah bay gaalaysiiyaan waxayna ku gaalaysiiyaan dambiga iyo macaasida ka dhacda kabiirada ama dambiga weyn ee ka dhaca buu qofku ku gaaloobayaa bay ku oranayaan waqtigan haddii la yiraahdo khawaarij yaa ugu dhow oo magaca qaadan kara qolada takfiirka baa qaadan karta qolo waxaa jirta takfiira oo dadka waxa ay gowracaan aan cunin dadkan oo dhan gaalo u haysta Soomaali oo dhan gaalo u haysta waxaan xasuustaa waqti aan u malaynayo 2004 mise 5 ba ahayd baa nin wadaada oo aan saaxiib ahayn qoladaas ku biiray dabadna waan u yeeray waxaan war sheekh diinta cusub ee aad heshay iyo waxa aad fahantay ee aanan fahansanayn muxuu yahay dabadeedna wuxuu yiri waxaan ku qancay dadkan Soomaaliyeed inay gaala yihiin waxaan ku iri maxaad aragtay oo kugu cusub meel hoos wax iga soo bilaabay wuxuu yiri Soomaalidu waa dad qabaa'ila Soomaha waxaan ku iri ha wuxuu yiri qabiilo kasta isim bay leedahay suldaan nabadoon caaqil garaad magaca doontid u bixi malaaq ukuka isimka marka ay dooranayaan miyay weydiiyaan oo yiraahdaan shariicada islaamka inaad nagu xukuntid baan shardi kaaga dhignay waxaan ku iri ma maqal laakiin dadku waa dad muslima shardigaas horta ma dhigtaan buu yiri ana ka weyn ana ka garanaya shardiga ma dhigtaan dadka isimka ku raaliga ah oo dhan waa gaalo sababtoo ah maxay raali ku noqdeen waxaan shariicada Ilaahay ahayn bay raali ku noqdeen okay bulshada kale caamada maxaa tiri bulshada caamada wuxuu yiri dawladaha dastuurka ku dhaqmaya bay u saacabatumaan faraxsan yihiin bariyaha malaha dawladii in bagaati baa la doortay oo
maalmaha waa la dabaaldegayay dadka dabaaldegayana waa gaalo weey waxaan ku yiri wadaadada masaajidka ku jira ee iyagu iska tukanaya ee dawladda aan ku jirin ismna aan ku jirin iyagana maxaad leedahay wuxuu yiri iyaguna kuwaas aanay gaalo oran oo qofkan gaalka gaal oran isna waa gaal ummadii oran muxuu ku soo koobay kooxda yare is wada arkaysa ee hebel iyo hebel isu taqaana mooyee wax muslima oo dunida ma joogaan ha heerkaas ku soo koobay qoladaas la oran karaa waa khawaarij qolada ayaa la oran karaa waa khawaarij laakiin qolyahan kale ee dagaalamaya inay shayaadiin ummadda lagu saliday yihiin oo dhiigoodii iyo maalkoodiiba banaysanaya waa dambi laakiin wasfigan ama tilmaantan shariicadu ay tilmaantay ma qaadan karaan waxa weeye waxay u baahan tahay baaritaan kale u baahan tahay iyo in la hubiyo inay dadka ku gaalaysiinayaan dambiga yar ee ka dhaca iyo dadkan Soomaaliyeed inay gaalo u arkaan in la weydiiyay u baahan tahay waayahay faslun fi qitaal al-bughaah kanina wuxuu baab u yahay dadka buqaada la dirirkooda buqaada marka waqtiga ay soo hoosgalayaan magaca waa marka dawlad muslim ah oo shariicada Ilaahay ku dhaqmaysa oo yani dawladii saxaabada iyo taabiciinta iyo dadkii ka dambeeyay ay maamulayeen dawladihii nooca aha marka ay joogaan oo islaamka iyo shariicada lagu xukumayo iyana ay ama dulmi tirsanayaan ama ay leeyihiin cid xilka haysa annaga ka mudan oo waa laga mudan yahay saa marka ay leeyihiin baa la oranayaa qoladaasi waa buqaad waliba inta aan lala diririn culima loo saaraya qancisa oo waxa weeye shariicada ku qancisa culimada haday diidaan marka wala la dagaalamaya waayahay wayuqatalu wala la dagaalamaya ahlul baghi dadka xadgudubka wada oo marka dawladda iyo dadka muslimiinta la diriraya maamulka haya بثلاثة شرائط صدح شرط baa lagu la diriraya kow an yakunu wa inayhiin fi man'a dad horta xoog leh qofka banaanka ka yiraahdo dawladdu ma jirto iyo dawladdan ma aaminsani iyo buqaad ma noqonayo way awoodba ma laha waxa ma sameyn karo waa inayhiin koox is aruursatay oo hubaysan oo waxa weeye awood leh waa inayhiin labo وأن يخرجوا وإن كبحان عن قبضة الإمام إمام مسلمين إليهين أو حوي تلذا مسلمين تأردن جعنتي زي كتيرتو أو حوي مسلمين تقتليا وإن كبحان أما مسلمين دمشق جوكتا أي مركا تلذي سوديبتين صدح وأن يكون لهم وإن إليهين تأويل سائغ وحون أي كأن دعون يان أو مركا لا أقبل كرو وإن ويه وقتي waxaynu sheegnay Ali ibn Abi Talib inay lahaayeen dadkii Uthman dilay hal soo qabto wax marka la aqbali karay laakiin qofka aan wax la aqbali kara lahayn oo waxa weeye cudur daarba aan sheegayn dawladda iskala dagaalamaya waxa weeye waa qof xad gudbay weey qoladaasi marka maxay mudanayaan hadii tilmaamaha laga helo saddexda waa dad muslimiin horta waa loo qirayaa inay muslimiin dawladii way la dagaalamayaan laakiin waa muslimiin waxay mudanayaan in la diriro marka ay muslimiinta la dagaalamaan laakiin wala yuqtalu asiruhum qofka laga soo qabto lama dilayo wala yughnamu maluhum hantidoodana lama xalaaleysanayo oo waxa weeye lama qaadanayo qaniimo lagama dhigayo wala yudaffafu ala jarihihim kooda dhaawacahna lama dhaawac tirayo oo lama dilayo soo maaragtid waxa loola dagaalamayaa si la xajeclo ku jirto sababtoo ah waa muslimiin dawladii muslimiinta waxa ay ula dirirsan yihiin waxa weeye fahan ay qaateen oo ah cidii xilka joogtay baan mudnayn ama dulmi ay tirsanayaan intaas ay ula dirirayaan marka in la dhaawac tiro ma mudanayaan ka laga soo qabtaa wuu nabadgelayaa lama dilayo hantidooda lama qaadanayo dumarkoodii marka lama banaysanayo dad muslimiina inay yihiin ayaa loola dhaqmayaa weey Ali ibn Abi Talib qolada markuu la dagaalamayay ayay marka dagaal yimaado inta badan in la isgaalaysiiya way sahlan tahay qoladii la ka garab dagaalamayay baa yiri qoladan Ali adiga oo Ali ah oo saxaabadii mubashiriina bil janna ku jira niman kula dagaalamaya soo gaala ma aha wuxuu Ali ugu jawaabay bal min al kufri farru gaalnimada ka soo carareen gaalnimo ka cararba weey nimankaasi
markaas waliba wuxuu yidhi ikhwaanuna bagaw calayna waa walaalahayo oo nagu xadgudbay walaaltinimadiina wuu qiray xadgudubkoodiina in la iska dhiciyo oo la iska qabto ayuu markaa cali tilmaamay waayahay faslun kanina baab wuxuu u yahay fi riddati gaalowgii qofku uu islaamnimada ka baxo islaamnimadu waxay ku sugantaa saddex nooc ama saddex qaab bay ku sugantaa kow culimada muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin islaamnimadu inay ku sugnaato qowlun billisaan eray afka laga yidhi oo ah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah labo ictiqaadun biljanaan qalbiga oo laga rumeeyey eraygaa macnihiisa haddaad afka ka tidhaahdid oo aanad qalbiga ka rumayn annagu waxaanu kuula dhaqmaynaa inaad muslim tahay laakiin aakhira gaal baad ka tahay wixii muslim xaq u lahaa iyo markaa cibaadadii in lagaa aqbalo ma mudanaysid weeye annagu maxaanu xukumaynaa qalbiga ma jeexi karno afka waxaad naga tidhi oo shahaadadii ah baanu xukumaynaa marka waxay ku sugantaha afka oo laga yidhaahdo qalbigana laga aamino iyo wa camalun biljawaarix ficil gacmaha laga sameeyo salaadii inaad tukatid waada shahaadatay muslim baa tahay baa tidhi waa inaad hoggaansantaa oo awaamirtii ilaahay aad u hoggaansantaa salaadihii waa inaad tukataa zakadii hadday kugu waajibto waa inaad bixisaa waxa weeye bishii ramadaan waa inaad soontaa arkaanta islaamka waa inaad la timaadaa ficilkaasina muxuu muujinayaa islaamnimadii buu muujinayaa sida haddaba saddexda af eray laga yidhaahdo iyo ficil la sameeyo iyo wax qalbiga la gashtaba islaamnimada loogu soo galo ayaa intaana lagaga baxa oo lagu gaalooba qofku eray uu afka ka yidhi ayuu ku gaaloobi karaa oo hadduu ilaahay caayo ama rasuulka caayo ama malaa'igta caayo dee wuu gaaloobayaa ficil uu sameeyeyna wuu ku gaaloobi karaa qofka musxafka ama kitaabka qur-aanka dhulka ku tuura ee ku istaaga waxa weeye ficilkaasi muxuu tusinayaa inaanu rumaysnayn wuu ku gaaloobayaa qalbiga wax uu gashtayna wuu ku gaaloobayaa haddii uu aamino ilaahay inaanu jirin oo nebigu jirin oo waxa weeye waxanima aanay jirin ama qur-aanku aanu xaqba ahayn uu aamino wuu ku gaaloobayaa saddexdiiba markaa gaalnimadu way ka dhici kartaa waman irtada qofka gaalooba can ilislaami diinta ka baxa oo islaamnimada ka gaalooba ustutiiba halaathan saddex baa markaa toobadkeen la weydiinaya culimmadu waxay yidhaahdeen ma saddex maalmoodba mise saddex jeer baa la odhanayaa markasta toobadkeen labadaba waa la yidhi saddexda maalmood haddaan idhaahno intaasaa la odhanayaa ku toobadkeen inta hadduu isku waansado oo markaa islaamnimadii dib ugu soo noqdo dib u ashahaato muslimnimadiisina u qiro qofkaasi waa qof muslima islaamnimadii dib ugu soo noqonaya fain taaba hadduu toobad keeno markaa wailaa haddii aanu toobad keenina qutila waa la dilayaa wey waa la dilayaa halkan waxaa mudan inaynu tilmaano ridada iyo gaalowgu wax horta eray si fudud dadka loogu odhan karo ma aha hebel waa gaal inaad tidhaahdid wax sahlan ma aha ama isagiibaa gaal noqonaya oo qofkaa waxaad ku sheegtay baa dhab noqonaya ama aday kugu soo noqonaysa wax cid la dhaca ma aha ereygaa markaa inaanad si fudud cidi aanay u odhan ayaa mudan culimmadu waxa ay u dhigeen qofka goormaa gaalnimadiisa la xukumaya oo la odhanayaa hebel wuu gaaloobay waxaa jira shuruud in laga helo la rabo iyo mawaanic waxyaabo qofku inuu gaaloobo ka celinaya ayaa jira tusaale yar baan si fudud uga bixinaynaa shuruudda waxaa ka mid ah qofku inuu caqli leeyahay qof waalani hadduu erey gaalnimo ah ku dhawaaqo dee wuu gaaloobay lama odhanayo waxaa ka mid ah qofku inuu qof qaangaadha yahay oo markaa wax kala garanaya waa inuu yahay waxaa ka mid ah shuruudda qofku inuu isagoo doortay oo cidi aanay khasbayn waxaan gaalnimada uu sameeyey haddii qori dhafoorka lagaga qabto oo la yidhaahdo gaalow oo gaalnimo ku dhawaaqo oo uu yidhaahdo dee ma gaaloobayo ilaahay subxana wa tacala baa qur-aanka ku tilmaamay ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan qofkii la khasbo
qalbigiisuna uu iimaanka ku xasilan yahay waxa weeye ma gaaloobayo weeye waxaa iyana shuruudda ka mid ah ama aynu iyana inaan tilmaano mudan waxa weeye dee qofkii ereygan gaalnimada ah inuu fahansan yahay oo garanayo oo hadduu aanu garanaynba jaahil ba yahay waxaan in lagu gaaloobaba aanu garanayn dee gaal ma noqonayo in la baro oo loo sheego ayaa ka horeysa weeye mawaanicda waxyaabaha qofka gaalnimada ka celiya oo isagoo ficil iyo wax gaalnimo ah sameeyey aan la odhanayn qofkaasi wuu gaaloobay waxaa ka mid ah qofku inaanu takliif aanu saarnayn isagoo hurda ayuu diinta caayay qofka ma la odhanaya wuu gaaloobay maya lama odhanayo isagoo oo waxa weeye la suuxiyey oo markaa suuxintii ka soo baxay buu waxa yidhi waxa weeye ma gaaloobayo isagoo waxa weeye takliifkaas in laga dulqaaday rufica alqalamu can halaath qofkii hurday qofkii yaraa ilmaha yar ahaa iyo qofkii waalaa midna waxa weeye gaalnimadu kuma dhacayso labo qofkii la khasbay isna gaalnimadu kuma dhacayso waxaa ka celinaya gaalnimada inaanu qofkani doorashadiisa ku odhan cadam ilqasd waxaan ereygani wuu ka soo baxay qofka laakiin ugumuuba talagelin inuu yidhaahdo afkiisunbaa uu ka soo boodayay ereygan qofkan maskaxdiisa iyo caqligiisa midna kuma jirinba ama wax ereygani waa erey aqbali kara ama shaygan waa wax aqbali kara in si kale loo fasiri karo waxaan uu yidhi ayaa gaalnimona aqbali kara waxaan gaalnimo ahayna noqon kara weeye ama qofkani ereygan wuxuu u yidhi isagoo fasir kale wata oo la aqbali karo la arki karo ta'wiil jaahilnimaduna iyana sidoo kale cudurdaar bay noqonaysaa laakiin waxaa muhiim ah inaan ogaano waxyaabo waxaa jira jaahilnimada aan soo hoosgelin oo qofku aanu jaahil ka noqon karayn waxyaabaha la yidhaahdo almacluumu min addiini bidaruura qofku hadduu yidhahdo salaaddu inay waajib tahayba ma aaminsanin inay salaadu waajib tahayba ma aaminsanin qofkan le wuu ku gaaloobayaa muxuu diiday wax ilaahay subxaana watacaala waajibiyey buu diiday ama shay ilaahay xalaaleeyey buu yidhi waa xaaraan cuntada bariiska in la cuno waa xaaraan buu yidhi shay ilaahay xalaaleeyey buu xaaraan ka dhigay ama shay ilaahay xaaraameeyey zinadu waa xalaal buu yidhi ama khamrigu waa xalaal buu yidhi qofka noocaasi uu ku gaaloobayaa laakiin shaygu hadduu yahay wax dadka oo dhani ay yaqaanaan arkaanul islaamkii oo kale waxyaabaha dadka muslimiinta aan ka qarsoomi karin salaadu inay waajib tahay soonku inuu waajib yahay xajku inuu waajib yahay zakadu inay waajib tahay waxyaabaha aan ka qarsoomi karin muslimiinta hadduu yahay la odhan maayo jaahilnima u geysay la odhan maayo laakiin wax dadka culimada ahi ay garan karaan caamadana ka qarsoomi kara hadduu yahay waa loo sheegayaa hadduu kusii adkaystana wuu ku gaaloobi haddaanu kusii adkaystana waxa weeye waa loogu cudurdaarayaa weye waa loogu cudurdaarayaa qofka niyooda ama niyadda geliya inuu gaaloobo isagoon afka waxba ka odhan islaamnimada inuu ka buxuba niyeystay daqiiqada uu niyadda geliyey buu gaaloobay waa inuu soo islaama waa inuu soo islaama waa inuu dib ugu soo noqda ama hadal waxa weeye ama niyaddu ka kufriyey ama qowl buu ku kufriyey ama ficil buu ku kufriyey intuba waxay noqonaysaa waxa weeye gaalow bay noqonaysaa waayahay haddii markaa sidaa la sameeyo waxaan idhi waxaa lagu xukumayaa dil baa lagu xukumayaa nabigu sal slam xadiid buu wuxuu ku yidhi man badala diinahu faqtuluuhu qofka diintiisa badala dila marka hore gaalada ikhtiyaar baa la siiyey laa ikraaha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay qofku inuu diinta islaamka qaato iyo inuu gaalnimadiisa iska joogo marka hore khiyaar buu u haystaa anagu diinta waa u sheegaynaa laakiin hadduu soo galo oo soo islaamo dib uguma noqon karo gaalnimadii waa lagu dilayaa wey walam yugasal lama maydhayo meydkiisa walam yusalla calayhi laguma tukanayo walam yudfan lagumana aasayo fii maqaabir lmuslimiin qabuuraha muslimiinta waa madhabtii shaaficiyada aynu haysanay iyo kitaabkii abu shujaaca ee minhaajka asalka u ahaa baa sidan qoraya wey culimada oo dhan madaahibta oo dhanina way ku waafaqsan yihiin waxaan insha allahu ku darayaa faslun fi xukmi taariki الصalaa
kanina wuxuu baab u yahay oo xeer ciqaabeedka lasoo hoosgeliyey qofka salaada ka taga xukunkiisu waxa uu yahay taariku salaadka. horta salaadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala uu aadka u weyneeyey. bal in salaada ilaahay uu weyneeyey waxaad ku garanaysaa shareecada inteeda kale rabbi subxaanahu watacaala wuxuu soo jideeyey oo soo dejiyey nabiga sal ly slam oo dhulka jooga. salaada laakiin waxaa lagu farad yeelay isagoo fowqa 7 samaawaad jooga habeenkii la dheelmiyey. taasi maxay ku tusaysaa salaadu inay acmaasha kale oo dhan ka duwan tahay. arkaanul islaam shahaadada waxaa ku xiga waa salaada in la tukado. salaadu markaa miisaanka intaa la eg bay leedahay. nabigu sal slam wuxuu yidhi alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa, annaga iyo gaalada waxaa noo dhexeeya waa salaada, faman tarakahaa faqad kafar, qofka salaada ka taga wuu gaaloobay. ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamaha marka la tagana camalka ugu horeeya ee uu qofka ka xisaabinayo waa salaada. awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama asalaa. fain saluxat salaatuhu saluxa saa'iru camalihi wain fasadat salaatuhu fasada saa'iru camalihi. nabigu sal slm wuxuu tilmaamay waxa ugu horeeya addoonka laga xisaabinayo maalinta qiyaame waa salaada. haddii salaadiisu toosnaato oo hagaagto camalkiisa inta kalena way u hagaagi. haddii salaadu ay xumaato camalka intiisa kalena wuu xumaan. salaada miisaanka intaa la eg bay leedahay. bal gaalada ayaa waxaa lagu ciqaabi doonaa aakhiro oo waxyaabaha lagu ciqaabi doona waxaa ka mid a salaada maxay u tukan weydeen. ilahi subxana wa tacala qur-aanka wuxuu ku yidhi waxaa la odhan doonaa dadka maa salakakum fii saqar, naarta saqare la yidhaahdo maxaa idin geliyey. shayga koobaad iyagoo gaalo ah waxay odhan doonaan lam nakun min almusalliin, kuwa tukada kamaanaan mid ahayn. walam nakun nuطcimu lmiskiin, masaakiinta wax maanaan sii jirin. wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin, ciddii wax iska jibaaxdo oo wax iska tidhaahdo oo xumaan iyo dunuub iyo waa iska dhexgeli jirnay. wakunaa nukadibu biyowmi ddiin, aakhirana maanaan rumaysnayn. aakhiro inaanay rumaysnayn maxay ka horreysiiyeen? salaada inaanan tukan jirin. salaada horta miisaanka noocaasa ayay leedahay. ka tegitaankeeduna culimadu waxa ay tilmaamaan inay kufri tahay. weliba in badan oo ka mida culimadu gaalnimo inay tahay bay qabaan. culimada qeybtood baa kasoo reebo waxay yidhahdeen maya gaalnimo lama odhanayo waxa weeye qofkan muslim caasi ah oo dunuub samaynaya weeye. bal saxaabadu waxay yidhaahdeen jamaacada masaajidka qofka aanu ka weyno munaafiq baanu odhan jirnay. halkaa ugumay jirin qof muslima oo salaada ka taga xisaabta ugumay jirin. waaba muslim salaadiina wuu ka tegaya xisaabta ugumay jirin. waayahay wataariku salaati calaa darbayni, qofka salaada ka tagaa laba qaybood ayuu u qaybsamaa, ama laba qaybood bay dadka salaada ka tagaa u qaybsamaan. axaduhumaa midkood an yatrukahaa, qofku waa inuu ka tago gayru muctaqidin, isagoo aan rumaysnayn liwujuubihaa, salaaduba inay waajib tahay. waajibnimada salaada aanuba rumaysnayn qofkaasi. fa xukmuhu xukunkiisu xukmu lmurtadi, waa xukunka qofkii gaaloobay wey. hadduu yidhahdo salaaduba waajib iguma aha, waxa weeye wuu gaaloobay. waqtiyadan dadka qeybtood baad moodaa si farsamaysan inay u isticmaalaan. waxaa lagu odhanayaa yaqiin baan gaadhay oo aniga salaad hadda waxa weeye lagama doonayo, ama idinku halkan masaakiin baa tihiin halkan iska farfadhidaan, anu kacbadan kusoo tukadaa waan idinla fadhiyaa. dadka qeybtood baa laga yaabaa inay dadka ku harowsadaan sidaa. qof muslim ah oo salaada aan tukanayn islaamnimadiisu waxa weeye calaamad weyn baa saaran. waa qofka koobaad. qofka yidhaahda aniga la igumaba leh, haddii dee aan lagugu lahayn cudurdaar sharciya waa meesheeda. gabadhii dhiigga ku jirtay ee caadada lahayd ama dhiiggii dhalmada lahayd waxa weeye dee laguma laha, gabadhaas waynu ka aqbalaynaa. laakiin qof muslima oo cudurdaar shareecadu ay ogoshahay aan haysan oo yidhaahda la iguma leh, waxa weeye qofkaasi wuu ku gaaloobaya. bal haddii aad xanuunsanaysid oo aad dhakhtarka jiiftid, caqligaagu hadduu joogo waa inaad tukataa. istaag haddaanad ku tukan karin fadhi baad ku tukan, fadhi haddaanad ku tukan karin jiif baad ku tukan, jiifka haddaanad ku tukan karin hadba dhinaca aad samayn kartid waa u tukanaysaa. xitaa niyadaad ka tukanaysaa. haddii xubnahaaga midna aanay dhaqaaqay, niyadda ayaad ka tukanaysaa. marnaba salaadu kaa dhici mayso
inta caqligaagani uu joogo muslimna aad tahay ya haddii aanad awoodin ha bilaa weysad ku tukan salaada marnaba ka tegi maysid ha haddii aynu biyo weyno horeynu usoo marnay kitaabu tahaara ugu soo marnayo dee ciiddii iyabaad isticmaalaysaa ciidba waad weyday biyana waad weyday waad tukanaysaa xitaa haddii aad intaad badda gashid oo waxa weeye dooni kula dhacdo oo dharkii oo dhan baddu kaala hadho oo aad muluq tahay waxa weeye waa tukanaysaa marnaba salaadii la odhan maayo waa laga tegi karaa lama odhanayo wathaani ka labaadna waxa weeye an yatrukahaa waa qofku inuu ka tago kasalan caajis inuu uga tago muctaqidan liwujuubiha isagoo rumaysan inay waajib tahay fayustataabu qofkaa waxaa la odhanayaa toobadkeen baa la odhanayaa fain taaba haddii uu toobad keeno waa qof muslima wasallaa oo uu tukado wailaa haddii uu toobad keeni waayo salaadiina dib u bilaabi waayo qutila xaddan waa la dilayaa marka astakfirullah in la yidhaahdo niyaddana aad gelisay inaad dembigan ka soo noqotid waa towbad ha qofkan labada jeerba haddii uu ku adkaysto salaad la-aanta horta dil baa ku xukuman marna gaalnimaa loo dilayaa marna shaaficiyadu waxay yidhaahdeen marna waxaa loo dilayaa xad baa loo dilayaa oo salaadii oo uu ka tegay oo uu diiday baa loo dilayaa haba aaminsanaado ha yidhaahdo wallahi salaadu way fiican tahay salaadu waajib bay igu tahay waa isku kari la-ahay waa mashquulsanahay wuxuu doona ha yidhaahdo toobadkeen baa la odhanayaa salaada bilow hadduu bilaabi waayo isna dil baa ku xukuman wa kaana xukmuhu xukmu lmuslimiin laakiin markan xukunkii muslimiintu qaadanayaayo sidii muslimiintaa loo maydhayaa meydkiisii sida muslimiinta loo kafmayaa xabaalihii muslimiintana waa lagu darayaa waa haddii loo dilo inuu salaada tukan waayey isagoo rumaysan inay salaadu waajib ku tahay oo lagu leeyahay weeye waayahay darsiga insha allahu xiga ayaynu kitaabu ljihaad hadduu rabbi yidhaahdo ku furfuri doonaa ama ku bilaabi doonaa oo insha allahu aynu wax ka tilmaami doonaa hadduu rabbi yidhaahdo waxaan malaynayaa hal wiig baa inooga hadhay bishii barakaysnayd ee ramadaan biidn illaahi tacaala oo darsi labaad darsi dambe ayaa inooga hadhay darsigaasina insha allah waxaynu kitaab uljihaad ka tilmaami karno insha allahu ka tilmaami doonaa subxaana rabbika rabbi lcizati cama yasifuun wasalaamun cala lmursaliin walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wax su-aale hadday jiraan fadal haye صح صح وسؤال مهم النبي صلى الله عليه وسلم آبه دين مسلم كما يهرين وحوي مجلسنا عبد الله بالورن جري هرت الدين ويكهرين أو دين النبي إبراهيم أو وحوي دين صحيحة أو سليمة أهيد باكهريسي labadii diimood ee ugu dambeeyey oo kiristaankan diinta towraad iyo injiil laftooda waxbaa kasii joogay iyana waxa weeye way ogol yihiin oo ereygaa way leeyihiin bal nabi ciise wuxuu lahaa waxa weeye cabdullaahi lahaa cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya markuu hadlayay addoon ilaahay baan ahay buu lahaa marka ereyga allah erey ay yaqaaneen buu ahaa erey ay yaqaaneen ayuu ahaa cabdina inuu addoon yahay way yaqaaneen marka cabdullaahi inay isu idaafeeyaan oo addoonkii ilaahay yidhaahdaan waxay yaqaaneen bay ahayd carabi oo wax ku cusub ma ahayn oo luqadooda wax ku jiray ahayd waxyaabaha aanay oqon waxaa ka mid ahayd oo nabiga sal ly slam ay ku diideen markii heshiiskii la kala saxeexanayey waxaan filayaa heshiiskii wuxuu ahaa baycat alxudaybiya inuu ahaa baan rajeynayaa heshiiska xudaybiya uu ahaa sulxu xudaybiya waxaa nabigu sal slam uu qoray bismi illaahi araxmaani araxiim araxmaan araxiim bay diideen anagu ma naqaan bay yidhahdeen araxmaan araxiim laakiin bismika allaahuma qor allaahuma way yaqaaneen allahi way yaqaaneen way ogolaayeen marka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahnimo way u ogolaayeene waxbay la wadaajinayeen oo waxa weeye sanamyadan markay tusaale ahaan dawaafayaan waxay odhan jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan tamlikuhu wamaa malak waxay lahayn ilaahay oo adaanu ku adeecnay
adiga cid aan hayn maanan adeecin ilaa mid yaroo adigu aada leedahay oo aan isagu waxba lahayn mooye sanamkay sheegayaan marka way ku lifaaqayeen oo waxa weye shirkiga halkaasi ka sameynayeen ilaahay way garanayeen oo may diidanayn ha fadal xabiibi sheekh wadankeeni dhalinyaradu diinta caayaan diinta waxa ku soo diinta caayaan bada ciyaaraan balooni wakal square buqaan isdirayaan diinta caayaan dalka ay ku ka toobad keenayna ma arko caadi bay u qaataan marka maxaa loo horta caayada diinta la caayo ama ilaahay subxaana watacaala la caayo ama kitaabka qur-aanka ama muqadasaadka in la caayo kufri weeye oo gaalnimo weeye nasiib daro dhalinyarada ama ragga qeyb ka midii malaha cawaandad iyo inaad geesi iyo halyey noqotid iyo waxa weeye sharaf iyo xoog bayba ka doonaanba caydaas arrintaasina arrin dembigeedu aada u weyn yahay weeye qofku hadduu gaaloobo xaaskiisaa ka furmaysa waxa weeye qofkaasi xaq wixii muslim lahaa ma yeelanayo dhaxal waxa weeye aabihiisii muslimka ahaa kuma yeelanayo haddii uu dhinto xabaalaha muslimiinta laguma aasayo marka arrintaas arrin in laga digtoonaado oo weliba maamulada iyo markaa nidaamyada jira ay gacan adag ku qabtaan oo aanay ogolaan in la caayo diinta ilaahay subxaana watacaala ayaa lagama maarmaana waayo diintu waxaan haysanay diintaan haysanay weeye muqadasaadkeennii iyo waxyaabihii aynu aaminsanayn iyo allah subxaanahu watacaala in inama yaryari aflagaadaynayaan inana aynu iska aamusannahay oo raalli ku nahay arrintaasi arrin saxa ma aha marka in wax laga qabto weeye oo weliba gacan adag lagu qabto dadka waxaa dhaqan ka dhiganaya gaaladu diintaba ma aaminsana mar haddaanay aaminsanayn innaga iyagu tooda waxba ma arkaanba hadda cidda ay ilaahay u aaminsan yihiin oo almasiix ciisa bni maryam inay jesus iyo la aflagaadeeyo xitaa xoriyatulqowl bay u haystaan ha waa freedom of speech way ka odhanayaan mardii jesus wax laga sheegaya waa caadi marka iyagu waa xoriyatulqowlkii waa meelo badan la galay oo waxay qiimeynayaan ma jirto laakiin inaga dad muslimaynu nahay in diinta iyo markaa aflagaadiintooda aada looga digtoonaado weeye هي جزاكم الله خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين